maxaa daawade ka taqaan ama aad kala socotaa dawladda adduunkani dunidana casriga ku guulaysatay Samaynta markabka dagaal ee dunidani ugu weyn si aad uga bogato umuurahaasi ku xidhnow qormadeenan dawladda Japan ayaa markii ugu horeysay daaha ka fayday inay samaysatay markabka dagaal ee noociisu yahay kii ugu weynaa dunidani markabkani oo la sheegay inuu ka casriyeysan yahay labada markab ee HMS Queen Elizabeth oo ay leedahay dawladda boqortooyada Ingiriisku iyo Gerald R. Ford oo ay leedahay dawladda Mareykanka ayaa cabirka dhererkiisa lagu sheegay 248 mitirkaasi oo la sheegay inuu kharashka ku baxayaan uu yahay 3 bilyan oo lacagta yaanka Jabaaniiska markabkani oo ah nooca qaada diyaaradaha dagaalka ayaa lagu magacaabay Sumo kaasi oo la sheegay inuu awood u leeyahay inuu qaadi karo gaadiid dagaal noocyadiisa kala duwan gaar ahaan noocyada diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaan helicopteriska waa diyaaradaha qumaatiga u kacay iyo kuwa loo yaqaan F-35 Cham Jet Fighters waa diyaaradaha jaanta fudud ee hawada sare wax ka duqeeya markabkani ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee muddo 70 sano kadib ay yeelato dawladda Japan waa wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida dawladda Japan oo xilligaasi ahayd awood military oo xoog leh ayaa ka tirsanay isbahaysiga wixii loo yaqaanay dhidibka xoogan ee wadamada Jarmalka iyo Talyaaniga iyadoo ay dawladda Japan xilligaasi hore u lahaan jirtay markabka dagaal ee dunida ugu weyn kaasi oo ay ku guulaysatay samayntiisa bilowgii dagaalkii labaad ee dunida 1941 dawladda Japan waxa ay imika heshiis la gashay shirkadda samaynta diyaaradaha loo yaqaano Lockheed Martin taasi oo lagu wado sida ku cad qorshaha hordhaca ah ee kala saxeexdeen labadani dal samaynta 42 diyaaradood oo noocooda loo yaqaano F-35 Cham Jet waa haddii uu dhamaystirmo heshiiskani dawladda Japan oo kamid ah dalalka ugu horeeya xagga tiknoolajiyadda iyo dhaqaalaha ayaa muddooyinkani u dambeeyay ku howlanay soo celinta awoodeedii ciidan ee lahaan jirtay barisamaadkii iyadoo arrinkaasina ka gadaal yimi xiisadda ay soo taraysay iyo khatarta amni ee ka taagan waayadan dambe gacanka kuuriyooyinka ee ka wado Kuuriyada Waqooyi